السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أقيارت يوتيوب أني سلامي عشر كنا ما ندعو كسابسين يعني ستان أسمي لهن زيب فولدر معني سوحي هاي سورة بدن آيات وحكو قادنا سا برنامج أما إن برنامج أردت أنا قف درتي مركا برنامج بدنا بزيب فولدر كأي الله استعمال الله قادا مركا ماشي مركا فولدر كان فرن وصورة عندنا كقرا وحكو قرن ماشي كجرو إن سورة وفر بدن marka waxa laga yaabaa qofka marka uu diraayo in marba sawir macnaha ay dib ku noqoto qofkaas inuu arko marba sawir inuu u diro sidee u sameeynaa hadii aan rabo qofkaas inaan albumka dham sawirada igu jiro meesha dham intaan meel isu habeeyo ayaan sidaan u sameyn karaa kadib waa iska soo xireysaa markaas soo xireysid right click ayaa leedahay waxa leedahay send to add comprise zip folder ka gal kadibna wuxuu ku abuurayaa zip folder-ka haddii aad rabtid inaad ku dirtid hotmail-ka ama skype-ka ama facebook-ka ama qofkii markaa rabtid inaad meesha dhex gelisid hadda hotmail-ka kale markaan fiirino open ayaa leenahay hotmail-ka kadibna new asoo leedahay inbox-ka markaan ku laabano new ayaad imaanaysaa kadib markaa new imaadid waxaa kusoo baxaya meeshaan waxaa ku qoran attachment-gaas ayaad keli ku siinaysaa kadibna boxkan yar ayaa ku soo baxayo waxaad ka daranaysaa desktop-ka meesha ku yaala ama desktop-ka kale kadibna waxaad raadinaysaa zip folder-kii waa kana sawiradii kadibna open ayaa leedahay sawirada waxay ku xiran tahay inta qaadkiisa uu badan yahay ku xiran tahay haddii sawiro badan sida ay ku jiraan waxa laga yaabaa inuu dhowr daqiiqadood qaato laakiin sawirka uu ku qaadaa marka waxaan rajeynayaa insha Allah biidhnillah kariim inaad ka faa'iideysateen sababtoo meesha ku qoran upload ku qoran uu download gareena waa macnaha uu ku soo shubaa marka insha Allah biidhnillah kariim wixii su'aalo comment ayaa ku soo qori kartaan assalamu alaykum ورحمة الله تعالى وبركاته وجزاكم الله خيرا.